toddobaadka iyo dhextaalka wararkan idinku haya waxaa ka mid ah dagaalka Faano iyo dowladda Itoobiya oo sii xumaaday, barakac baahsan oo ka jira Amxaarada, xiisad cusub oo ka dhex oogan xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya kadib eedeymo hubgeyn sharci darra, muranka siyaasadeed ee ka dhex qarxay labada dhinac, mucaaradka gudaha dowlad deegaanka Soomaalida. Aniguna waa Libaax Barqiye. jabhadda Amxaarada ee Faano ayaa weli ka dagaalamaysa gobolada waqooyi ee Itoobiya, gaar ahaan magaalooyinka Gondar iyo deegaanada ku dhow xadka Suudaan. Dagaalyahanadan Faano waxa ay ku guuleysteen inay qabsadaan goobo muhiim ah, waxaana jira iska caabin xoog leh oo ay kala kulmayaan ciidamada federaalka Itoobiya, taas oo sababtay in la dilo dad badan oo rayd ah iyo inay kumanaan qof ka barakacaan guryahoodii. xiisadahan dagaalka ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay amniga gobolka Amxaarada iyo guud ahaan Itoobiya, iyada oo ay dowladdu la tacaalayso dagaalo dhinacyo kala duwan leh oo ay ka mid yihiin jabhadaha Oromada iyo jabhadda Tigray. xiisada cusub ee ka dhex oogan xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya kadib eedeymo hubgeyn sharci darra ah. xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waajahaya xiisad hor leh kadib markii ay Soomaaliya ku eedeysay Itoobiya inay hub u gudbisay Puntland, arrintan oo Soomaaliya ay ku tilmaantay xadgudub ku saabsan madax bannaanideeda. hubkan ayaa la sheegay in uu soo galay dalka iyada oo aan ogolaansho laga haysan dowladda Soomaaliya, taasoo keentay walaac amni oo ka dhex abuurma labada dhinac. dhowaan ayuunbay ahayd sidan oo kale inuu u soo galay hub sharci darra ahi dalka Soomaaliya. maranka siyaasadeed ee ka dhex qarxay labada dhinac, madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar Mustafa Cagjar iyo dowladda federaalka Itoobiya waxay ku muransan yihiin arrimo la xiriira awoodda iyo siyaasadda, maamulka iyo xiriirka u dhexeeya dowladda dhexe ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. khilaafkan ugu weyn ayaa salka ku haya muran dhowr ah oo ay ka mid yihiin siyaasadaha qaar ee dowladda federaalka ah, khilaafkan oo ku salaysan qaabka awoodda loo qaybsanayo iyo siyaasadaha dowladda dhexe ee saamaynta maamulka goboleedyada gaar ahaan deegaanka Soomaalida. muranka siyaasadeed ee ka dhex qarxay labada dhinac, madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar Mustafa Cagjar iyo dowladda federaalka Itoobiya waxa ay ku muransan yihiin arrimo la xiriira awoodda siyaasadeed, maamul iyo xiriirka u dhexeeya dowladda dhexe ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. khilaafkan ugu weyn ayaa salka ku haya arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin siyaasadaha qaar ee dowladda federaalka ah, khilaafkan oo ku salaysan qaabka awoodda loo qaybsanayo iyo siyaasadaha dowladda dhexe ee saamaynaya maamul goboleedyada gaar ahaan deegaanka Soomaalida. waxaa soo baxayay warar sheegaya in dowladda dhexe ay isku dayayso inay ku farageliso maamulka deegaanka Soomaalida, taas oo sababtay isqaqabsi u dhexeeya labada dhinac. mucaaradka gudaha dowlad deegaanka Soomaalida, waxaa jira kooxo siyaasadeed oo gudaha deegaanka Soomaalida ah oo ka soo horjeeda hogaaminta madaxweyne Mustafa Cagjar, kuwaas oo isku dayaya inay ka shaqeeyaan dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya. khilaafka u dhexeeya dowlad deegaanka iyo dowladda federaalka, xaaladan ayaa ka turjumaysa khilaafaadka ka jira nidaamka federaalka ee Itoobiya sida ay u kala qaybsan tahay tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Tigreega. xiisadaha ka dhex jira madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo dowladda dhexe waxa ay saameyn ku yeelan karaan xasiloonida gobolka iyo guud ahaan Itoobiya. halkaas ayuu inoo joogayaa wararkeeni toddobaadkani.